sidii baarlamaanka howlihiisa loo dadejin lahaa isla markaana ay u qabsoomi lahaayeen kulamada ugu horeeya ee baarlamaanka aqalka Soomaaliya oo marsiiyo sharciyo aad muhiim u ah oo ay ka mid tahay sharciga doorashada amase sharciga doorashooyinka kuwaas oo uu doonayo inuu ku dabaqo maamul goboleedyada dalka si uu isaga adkeeyo maamul goboleedyada sida xogaha la helay ay sheegayaan maamul goboleedyada Soomaaliya qaar ka mid ah sida Jubbaland ayaa waxay sheegayaan in ay doonayaan inay qabsadaan doorashooyin iyaga u gaar ah una aysan wax doora ku lahayn iyo faragelin arrintaasi oo uu aad iyo aad u dhibsanayo madaxweynaha federaalka Soomaaliya laakiin samiyo cagta marin doona madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud si uu cagta u mariyo saaxiibadiisa uu keeno saaxiibo isaga adkaysan doona ma ka maarayn doonaan xaaladaha iyo mowjadaha adag ee uu wajahayo madaxweynaha jamhuuriyaddu maalmahan isbedel weyn ayaa laga dareemayaa aqalka baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasadeedaba ana suurtagal ah isbedelo in ay dhacaan miisaankooda wata kuwaas oo keeni kara in ay xaaladdu kasii darto ama ay faraha kasii baxdo dhinaca kale waxaa maanta ka dhacday aqalka jamhuuriyadda baarlamaanka Soomaaliya arrin kale oo fadeexo ah ama oo ay koromlaan u baaqdeen howlihii qaranka welina waxaa furmila kulanka koowaad ee fadhigii shanaad ama oo kal fadhiga shanaad uu furay madaxweynaha waxaana isla hadda qabsoomila kulamadii ugu horreeyay kolomlaan darteed xasaasiga ay maanta lahaayeen golaha baarlamaanku ayaa maanta baaqday sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe sheegayna inay arrintaasi tahay qalad weyn oo baaqday kulankaasi kolomlaan kaasi oo barbilow ahaa kal fadhiga shanaad uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe inay soo xaadireen maanta 105 xildhibaan taasina ay tahay fadeexad ka dhana aqalka baarlamaanka ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay baarlamaanku ka soo laabteen fasaxyo dhaadheer baarlamaanka ayaa sheegay in uu maanta filayay in si dhammaystiran loo imaan doono golaha baarlamaanka maadaama fasaxyo dhaadheer laga soo baxay in shuruucdii kal fadhiga afraad ay dhaqaaqi waayeen quorum la'aan sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay inuu aad iyo aad uga xun yahay maadaama ay baaqatay shaqadii ay hayeen ummadda Soomaaliyeed una sheegay xildhibaanadii soo xaadiray in ay aad iyo aad u mahadsan yihiin gudoomiye Aadan Madoobe ayaa digniin culus u diray xildhibaano uu sheegay in ay magaalada Muqdisho joogaan soona xaadiri waayeen kal fadhiga shanaad inay ceeb ku tahay maadaama oo ay gudan waayeen inay soo xaadiraan fadhiga kulankii maanta waxa uu ku sii daray gudoomiye Aadan Madoobe maadaama xildhibaanada qaarkood ay dalka joogaan soona xaadiri waayeen iyo kuwa dalka ka maqanba in la ceebayn doono dastuurkana lala tiigsan doono